بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت كسر دواء كلية عافمات في ريفت فالي ميديكال كوليج وكورس كني epidemiology عن بايستاتكس كا عشر كانوا إحنا قلنا شابتر كيني كوباد مع 10 كيني كوباد كسب سن كورس كني epidemiology كا كورس كني وحكوا كوبي هاي epidemiology عن بايستاتكس ونيجا أفر موديول كلا سارني أفرت موديول أم أفرت واحدين كلا سارني لبده واحد هو واحد نقول تلاقي قيبته epidemiology كا لبده واحد دمنا واحد نقول تلاقي بايستاتكس وكا قيبته الموديول كوباد بينه بلام دونا chapter 1 وكهلا introduction to epidemiology information أما حقود أو رعة أو كسابسن epidemiology وحوي هاي ولسن كي لسن نمبركم ولسن number 1 عشان واحد لسه عسين أنا عبدالقادر عبد الله علي فقي أي لسه عسين دونا in chapter kan waxyaabahan ku qaadan doono iyo objectiveskiisa iyo contentska uu leeyahayba waxaan ku arki doonaa qaybta xigta si guud hadaynu u sheegno epidemiology-gu waa laana wax kamid ah science-ka iyo cilmiga aqoonta oo inta badan la xiriidha barashada la baranayo population-iska bulshooyinka ama communities-ka ayaa lagu bartaa waxyaabaha la xiriidha health events-kooda ama health conditions-kooda sidoo kale waxa la xiriidha waxyaabaha determine gareeya ama go'aamiya factors-ka iyo qodobada go'aamiya disease occurrence-ga inta badan disease occurrence iyo frequency of disease iyo determinants of disease waxyaabahaas ka hadla distribution-ka xanuunka wuxuu ka hadlayaa factors-ka determine gareeya ee xanuunkaas sababaya wuxuu ka hadlayaa frequency-ga ama reerkaadashada ama soo noqnoqoshada xanuunkaas inta quantity ahaan ama tiro ahaan uu leeyahay waxa uu ka hadlayaa sida loo applicable looga dhigayo loo apply gareynayo waxyaabaha preventioniska ee xanuunka laga hortagayo iyo waxyaabaha healthka iyo caafimaadka promotionka lagu sameeyo marka sidii health promotionka loo sameeyo application-kiisa sidii xanuunka looga hortagi lahaa application-kiisa frequency-ga xanuunka dhicitaankiisa soo noqnoqoshada ama tirada inta marba uu qaadanayo rakaadashada xanuunka distribution-kiisa iyo filiqsanaanta xanuunka iyo waxyaabaha xanuunka saameynta ku yeesha ayuu ka hadli doonaa guud ahaan epidemiology sidoo kale epidemiological studies-ka ayaan ku qaadan doonaa chapter-ka gudihiisa waxaan ku qaadan doonaa qodobada halka ku qoran marka contents-ka waxyaabaha uu ka kooban yahay ama waxyaabaha la doonayo lecture-kan markuu ardaygu dhamaysto inuu fahmo oo qodobadan ku yaal at the end of this lecture kan markuu dhamaado you should be able to waxaad awood u yeelanaysaa inaad fahanto introduction oo definition-kii iyo meaning-kii epidemiology-ga inaad fahanto iyo epidemiologist waayo cidda cilmigan iyo aqoonta baranaysa oo qof nooceeya maxaa looga baahan yahay characteristics iyo sifooyinkee buu leeyahay history-ga iyo epidemiology-ga ku dhigan doonaa taariikhdii epidemiology-gu soo maray waayo ciddii ugu horeysay epidemiology-ga aasaastay iyuu noqonaya father of epidemiology-gu aimska kana mention waxaanu ku sheegi doonaa aims of epidemiology-ga ujeedooyinka ama goalska laga leeyahay in la gaadho maxay tahay marka la sameeyo maxaa la doonaya in la gaadho aimku wuxuu noqonayaa wax la doonayo to be achieved in lagu guuleysto marka epidemiology maxaan doonaya inaan ku guuleysano markaan epidemiology-ga sameyno sidoo kale purposes of epidemiology marka purpose-ka iyo aimku way kala duwan yihiin aimku waa waxa la doonayo in la gaadho halka purpose-ku ay ka tahay ujeedada waxaan loo sameynayo epidemiology-ga maxaa loo sameeyaa epidemiology-ga waa maxay ujeedada loo sameynayo aimkuna waa goalska iyo waxyaabaha la doonayo objectiveska la doonayo in la gaadho lagu guuleysto taasi ku kala duwanaanayo sidoo kale enumerate inaynu kala saarno epidemiology and clinical medicine iyo epidemiology waxay ku kala duwan yihiin epidemiology waa naga niri population-kii baa la study gareynaya la baranaya health conditions-ki events-ki clinical medicine inta badan isaguna xuseeya waa patients u tagaya dhakhtar ama goob xarun caafimaad qof isagu iskii socdaa tagaya epidemiology-gana epidemiologist iyagu waa inay iyagu population-ka u tagaan community-ga u tagaan wixii soo baadhan analyze soo sameeyaan study sameeyaan halka clinical medicine kusoo kuseeya dhakhtar kursiga miiska ka fadhiya
clinic jooga xarun caafimaad jooga isbitaal jooga dabadna patient kusoo u tegaya marka saas u kala balaadhay gudahana way ku faahfaahin doonaa sidoo kale inaan meesha gelin principles of epidemiology xeerarka waaweyn uu ku taagan yahay epidemiology qaybta koobaad waa micnaha epidemiology-ga sida caadiga ereygu haddii asal ahaan aanu luqadda Englishka ka soo jeedin ama bayskiisa aanu luqadda Englishka ahayn laba qaab baa marka ugu horeysa loo dhigaa oo marna waa la micneeyaa marna waa la define gareeyaa marka koobaad waxaynu micneynaynaa inuga asalka kelmadda eegaynaa epidemiology-gu muxuu yahay epidemiology-gu maaha kelmad English ah waa kelmad sida ereyada kale scientific oo kale waa kelmad ka timi luqadda Greek language bay ka timi Greek language maadaama ay ka timi epidemiology-gu waxaan u kala qaadaynaa saddex erey aynu kala qaadaynaa saddexda erey oo saddexduba Greek ah mid walba aynu micneynayno koobaad waa ibi weeyaan ibi micnaheedu waa upon means ka sareeya sida caadiga ama above bay noqonaysaa haddii Ingiriiska caadiga aan micneyn laakiin ereyada markaan hadhow waan isku xidhi doonaa way demosna waa people waa dad waa Greek demos laakiin English ahaan waxay dhigmaysaa dad bay u dhigmaysaa dad waayahay waxaa timi logosna waxay u dhigmaysaa ibi waxay nidhi waa upon oo ka sareeya demos waxay noqonaysaa inaydu people dad bay noqonaysaa logosna waxay noqonaysaa waa science or study waa cilmi aqoon ama waa barasho waxay noqonaysaa barashada la baranayo dadka upon name waxay noqonaysaa la xiriira waxyaabo la xiriira dadka ayaa la baranayaa behavior-kooda iyo muxuu ahaayey structure ahaan guud ahaan dadku qaabka uu samaysan yahay bulshadu xanuunada siday ugu dhex faafaan tracing-koodii waxyaabahaasa lagu baranaya marka waa state of people si guud haddaan meaningkeeda sheegno definitionkeeda xagga dambe ku arki doonaa haddaynu epidemiology-gii sheegnay macna ahaan wuxuu yahay halkan waxaan ku sheegaynaa who is an epidemiologist waayo who is an epidemiologist waayo epidemiologist wuxuu noqonayaa waa qof kasta ama waa shakhsi kasta kaasoo ka qayb qaata inuu ogaado ama baadho xanuun dhacay bulsho ku dhex dhacay ama waxyaabo mushkilada ah oo bulsho soo gaadhay halka qofka clinical medicalka ama dhakhtarkii medical doctorkii qofka isagu keliya uu la xiriirayo disease ama xanuun ku dhacay individuals shakhsiyaad oo qof u tegay deedna qofkaas uu u adeegayo epidemiologist wuxuu adeegaa bulshadoo dhan isagoo eegaya xanuunka dhacay bulshada ka dhacay ama waxyaabo kale oo disabilities ah ama injuries ama accidents waxyaabo bulshada ku dhacay marka epidemiologist wuxuu noqonayaa waa any person waa qofkas who researches kaasoo baaritaan ku sameeya into occurrence of a disease dhicitaan xanuun u dhacay oo disability ama waxyaabo injuries ah dhaawacyo naafoonnimo soo gaadhay in groups of people kooxa dad ah scholar ayaa la dhahdaa epidemiologist marka epidemiologistku waa qof kasta oo research gareeya xanuun meel ka dhacay xanuunkaas weliba bulsho ku dhacay bulsho dhexdeeda ku faafay community ama population groups of people kaasi population ama community buu noqonaya or disability ama injuries iyo waxyeelooyin soo gaadhay bulsho ayaa la epidemiologist qofka epidemiologist-ka haddaba epidemiology-ga baranaya qualifications baa looga baahan yahay waxyaabaa la doonaya inuu gaar u yaqaano waxbaa laga doonayaa in takhasus gaara uu leeyahay ama wax ka ogaado qofku markuu doonaya epidemiologist inuu noqdo waa inuu familiar ku noqdaa waa inuu garanayaa qodobadan soo socdo dhan inuu caan ku yahay waa inuu wax ka yaqaanaa xisaabta waa inuu ka yaqaanaa wax labka marka ama examinationska lagu sameeya xanuunada diagnosis waa inuu garanayaa waa inuu wax ka yaqaanaa medicine ama clinical medicine waa inuu ka yaqaanaa caafimaadka wax ka garanayaa weliba waxyaabaha la xiriira epidemics ama xanuunada inta badan bulshada large population bulshada ku dhex faafa waa inuu garanayaa si fiican u garanaya microbiology cilmiga la xiriira microbes iyo barashada ilmo qabatayga immunology waa inuu garanaya cilmiga la xiriira waxyaabaha immunity-ga
ama difaaca jirka waa inuu garanaya physiology qaabka jirku uu shaqeeyo qaybahaas waa inuu garanaya sidoo kale waa inuu yaqaanaa preventive medicine-ka ama qaybta laanta branchiga medicine-ka ka midka ka sheekaysa prevention of diseases marka qofkan waxa laga rabaa criteria laga rabaa haddii la doono qofkaasi epidemiologist noqoto haddii doonaysa markaa epidemiologist noqoto waa inaad taqaanaa statistical techniques-ka familiar with waa inaad taqaanaa si fiican u taqaanaa statistical techniques waa inaad taqaanaa waxyaabaha la xidhiidha statistics-ka ama data collection-kii ha ahaato ama ha ahaato analysis-kii ama ha ahaato data presentation-kii data interpretation-kii data recording-kii statistical techniques waa inuu qofkani garanaya well grounded in diagnosis of disease qofkuna waa inuu yahay qof si fiican u garanaya oo ka dhisan qaabka loo baadho diseaseska diagnosis samayn karo physical diagnosis-kii chemical diagnosis-kii physical examination-kii chemical examination-kii waa inuu garanaya screening-kii waxyaabaha waa inuu garanaya sensitivity-gii marka waa inuu diagnosis of disease qofku garanaya qofkani waa inuu yahay qof medicine-ka xaqiiqa through with medicine oo qof thoughts iyo afkaar iyo ideas ka haysta medicine-ka weliba qaybta related to epidemics qaybta la xiriira epidemics waxa weeyaan wax jira ereyo epidemiology oo isticmaalo epidemics pandemic anademic epidemic endemic ereya jira oo isticmaalo ereyadaas marka laga hadlayo epidemic hadana pandemic waa xanuun dunida oo dhan ka wada dhacay HIV waa pandemic TB waa pandemic xanuunkan imika dunida ka jira ee COVID-19 coronavirus ama novel coronavirus loo yaqaano December 2019 dunida ku bilaabmay lagu magac daray 19ka COVID-19 la yiraahdo pandemic haba imika dunida loo aqoonsado ee pandemic marka epidemic marka la leeyahay epidemic waxa looga jeedaa waa xanuun large population ama bulsho fara badan ku dhex faafay ee looga jeedaa waayahay marka epidemic-gaas waa large population xanuun ku dhex faafay ayaa la epidemic marka epidemic qaybta la xidhiidha waanu garanayaa qofkan waa inuu good knowledge waa inuu aqoon fiican u leeyahay microbiology-ga cilmiga lagu barto microbes-ka ilma qabatiga immunology-ga cilmiga immunity-ga ama defense mechanism-ka of the body of the animal lagu barto or the physiology of the body functions or how the body works inuu garanayo qofka knowledge waa inuu aqoon principles xeerarka uu ku dhisan yahay ama ku taagan yahay preventive medicine cilmiga iyo aqoonta qaybta caafimaadka ee branchiga iyo laanta ka midka medicine-ka ee lagaga hortago lagaga hadlo prevention of diseases waa inuu aqoon fiican u leeyahay halkan arday waxaan ku hadli doonaa waa history of epidemiology history-ga markaa way ballaaran history-ga epidemiology-gu waxaan ka soo xusi doonaa weyn hore uga gudbi doonaa waxaan ka xusi doonaa 3 nin oo kaliya oo taariikhda epidemiology-ga meel kaalin muhiim ah kaga jira ninka koowaad Hippocrates baa la yiraahdaa in Greek uu ahaa epidemiologist waxaana la yiraahdaa very renowned epidemiologist waa ninkii ugu horeeyay epidemiology-ga ee la aqoonsado ninkii ugu horeeyay wax ka sheega ninkan orayada sacanka waxa kamid ah inuu yiri environment and human behavior affects health deegaanka iyo human behavior waxay saameyn ku yeeshaan oo waxyeeleeyaan caafimaadka marka behavior-ka waxyaabaha lifestyle-ka bini'aadamku caafimaadka way waxyeeleeyaan oo qofku hadduu smoking sameeyo caafimaadkiisa dhibaato ku keenaya physical exercise sameyn waayo caafimaadkiisa dhibaato ku imanaysa hadduu subaga ama waxyaabaha cuntooyinka saliidaha leh badsado dhibaato caafimaadkiisa ku keenaya hadduu sonkorta ama macaanka badsado marka behavior-ka qofku uu nool yahay caafimaadka saameyn ku yeelanaya lifestyle-ka qofka sidoo kale deegaankuna saameyn ku yeelanaya badqabka mar walba deegaanka haddii deegaanka laga dhigo deegaan aan bad qabin deegaan desertia laga dhigo desertification uu ku dhaco drugs fara badan ku dhaca waxaasoo dhan saameyn ku yeelanaya caafimaadka sidoo kale haddii pollution yimaado water pollution, land pollution, air pollution, deegaanka la dhibaateeyo ee caafimaadka ku saameyn ku yeelanaya marka orahdaas u leeyahay ninka loo yaqaano isagana Thomas Sydenham oo noolaa 1640 ilaa iyo 1689 isaguna waxa wax ku qoray history of disease and become isaguna wuxuu noqday the founder of epidemiology maadaama ninkan wax ku qorayba oo taariikh uu ka reebay
diseaseska etiology waxyaabaha sababa transmissionka diseaseska vitrigal ku jirka ka galo sida muxuu ahaye xanuunku uu kala duwan yahay dadka susceptible ku ah iyo kuwa kale waxbuu ka qoray ku saabsan diseaseska iyo currencies the founder of epidemiology baa ninka loo yaqaan Thomas Sydenham ninka loo yaqaan John Snow oo isaguna Ingiriisa Thomas Sydenham kana waa Ingiriis oo physician labadu waa niman dhaqaatiir Dr. Boha Greek waa isaguna marka ninkana wuxuu noolaa 1916 ilaa 1918 isagana waxa loo tixgeliyay inuu yahay father of epidemiology ayay isagu wuxuu helayba epidemic cholera in London in August 1854 iyo ogaaday xanuun cholera oo ka qarxay magaalada London ayaa xanuunkaas wuxuu bilaabmay 1849 uu bilaabmay marka hore wala fahmi waayay sida ninkana dabagal ku sameeyay dabagalka uu ku sameeyay John Snow kadib wuxuu ku guuleystay inuu ogaaday in cholera-hani uu ka yimid biyo contaminated ah oo magaalada London ayaa wax laba company ba siin jiray biyaha labada company ee biyaha siin jiray ayaa river biyaha ka soo talaalay webiga ka soo talaalaana waxa ku xidhan sewage ama meelaha bulaacada magaalada ka taga inuu wuxuu daraaseeyay dadka ama dhimashada cholera halka ugu badan inuu wuxuu ogaaday meelaha ay ugu badan yihiin cholera inay yihiin meelaha biyaha ka cabo labada company biyaha soo saara daraasadii sidii uu marka labadii company mid kamid ah ayaa ka wareegay meeshii sewage uu soo geli jiray webiga dibadda meel kale webiga kamid ah oo biyo nadiif ah ayuu u wareegay dadna biyo baa magaaladii soo gaaray biyo markii soo gaareen dadna waxa la ogaaday in company-gii ka guuray meeshii sewage-ka ay webiga kaga talaalnaa dhimashadu ay ku yaraatay oo cholera ku yaraaday oo kaga batay meeshii hore webiga company-guna ku guuray dadna markaas uu xaqiijiyay isagu in cholera-hani uu ka dhashay contaminated water marka cholera waxaan lama aqoonin sidoo faafo lama aqoonin etiology-giisa waxaan lama garanayn dadna markaas saas ku noqday marka father of epidemiology halka definition ka galeen epidemiological definition ku balaaran yahay John Murray last nin la yiraahdo oo Canada u dhashay oo 2019 September ayaa uu qoytankeed baa u dhintay ninkani ka u dhawaaba marka professional buu ahaa epidemiologist ah ayaa definition ninkaas iskale ka definition kan ku qoran oo kala qaadi doona isagayna xogaa ku qaadan doona sharixi doona marka epidemiology waxaan ku qeexinaa inuu yahay the study barashada la baranayo of distribution fiqsanaanta ama baahsanaanta and determinants iyo waxyaabaha sababa factors sababa of health related states xaaladaha xiriirka la caafimaadka or events ama dhacdooyinka xiriirka la caafimaadka kaasoo lagu sababayo in specified populations bulshooyin gaar ama community gaar sidoo kale waxa weeyaan epidemiology and the application in la hawlgeliyo of this study barashadan la baranayo in la hawlgeliyo distribution determinants of related events waxyaabaha specific in la hawlgeliyo laga war doono to prevent or control in laga hortago ama la xakameeyo health problems mushkiladaha caafimaad mar haddii epidemiology yahay in la barto distributionka iyo determinants of related states or events waxyaabaha caafimaadka la xiriira liqsanaantiisa baahsanaantiisa iyo determinants oo waxyaabaha go'aamiya waliba bulsho gaar ah iyo application of this study the control of health problems in laga hawlgeliyo sidii loo controlay ama loo xakameyn lahaa health problems haddaba mid kastaba gaar baynu soo qaadanayna waxa ugu horeeya waa study number 1 baynu ka dhiganaa distribution baynu soo qaadan doonaa number 2 noqon doona gaar baynu sharaxaynaa mid walba determinants number 3 buu noqon doonaa health rate number 4 buu noqon doonaa specified population ku number 5 bay noqon doonaan application ku number 6 ay noqon doonaa okay study number 1 study marka leenahay epidemiology components ka epidemiology ka soo qaadana definition ku qoran study marka leenahay waxaan jeedin yani wax scientific ah wax science ah yani jeedna in ay shay science ah yani jeedna study marka leenahay study waa science bani jeedna wax science ahaan lagu proof gareeyay marka waa systematic collection analysis and implementation of that marka la sheegay study waa lagu sameeyay waa systematic collection waa in si habaysan loo soo ururiyo loo analyze gareeyo in loo turjumo sidoo kale epidemiology marka la study gareynaya waa wax science ah waa wuxuu ku taxalluqa collection
analyze and its percentage of health related data marka hore data waa si guud beh laakiin waa data ama xog la xidhiidha caafimaadka marka la waa distributionkii laba inuu qaybinaan epidemiology marka laga hadlayo xagga distributionka wuxuu khuseeyaa associated with the frequency and pattern of health events in a population frequency waa inta jeer xanuunkaasi uu dhacayo iyo pattern-ka oo ah waxa la sheegayaa habka uu dhacayo iyo hanaanka uu dhacayo haddii frequency-ga eegno refers waxa loo tixgelinayaa not only to the number of health events kaliya lama tirinayo tirada oo tiradii meesha ku jirtaa waa quantify waa la tirinaya quantifying way waxba la tirinaya frequency-gu waa la tirinaya marka waa quantitative science inuu yahay epidemiology way sheegaysa marka refers not only to the number of health events such as the number of cases of meningitis or diabetes lama tirinayo oo kaliya tirada goorgooyaha meningitis ka dhacay ama diabetes in a population but laakiin also sidoo kale waxaa laga hadlayaa iyadoo tiradii jirto waxaa laga hadlaya the relationship xiriirka of that member tiradaas dadka uu ku dhacay meningitis ama diabetes ku dhacay ama hypertension ku dhacay to the size of the population oo loo eegayo bulshada baaxadeeda intee la eg marka waxa la eegaya bulshadii tiradeedii guud baa la eegaya intee la eg kaga dhacay markaas marka la qiyaasi karaa baaxadda leeyahay xanuunkaas pattern-kana waxa loo eegayaa first waxa loo eegayaa the occurrence of health related events dhicitaanka ay dhacayaan waxyaabaha dhacdooyinka ama la xiriira caafimaadka xanuunkii baa la eegayaa waxaa la eegayaa xanuunkii waxaa la eegayaa timekii xillimuu dhacay placekii halkuu ka dhacay and person iyo cidda ku dhacay marka BPT-gaas la eegaya BPT ayaa la dhahdaa marka waa BPT-gaas wuxuu ka hadlayaa waa place iyo person iyo time qodobka kale aan eegayna waa determinants-ki iyaguna waxyaabihii sababaya xanuunkaba epidemiology sidoo kale also use waxa loo isticmaalo to search in la raadiyo for determinants waxyaabaha go'aamiyeyaasha ee sababaya which are kuwaas oo ah the causes waxyaabaha sababa and other factors iyo qodobada kale that influence ee saameyn ku yeelanaya the occurrence of disease xanuun inuu dhaco qaariga history-ga distribution-ka iyo determinants-ki health related events ayaa la xiriira marka ka hadlaynay health related events waxaan u jeednaa dhammaan conditions-ka la xiriira dhinaca caafimaadka ayaan ka hadlaynaa ayaan baranaa kaliya baran mayno disease-ka kaliya baran mayno patients-ka waxaan baranaa xataa behavior-kii dadka human behavior-kaan baranaa waxaa jira xanuunkana uu jira patient-kana uu jira laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo ka qayb qaadanaya in xanuunka laftiisa uu yimaado conditionskaas soo sheegnay kale sidii behavior-ka dadka smoking-ka iyo lifestyle-ka iyo waxyaabahaas waxay ka qayb qaadanayaan health related events-ka ku jiraan epidemiology not only the study of diseases maaha kaliya barashada xanuunka the focus of epidemiology-ga diirad saaridiisu are not only patients kaliya maaha bukaanada laakiin waa maxay studies waxay barato all health related conditions dhammaan xaaladaha la xidhiidha bulshada oo dhan ama caafimaadka bulshada la xidhiidha oo dhan specified population markaan u jeedno waa community weyn ka hadlaynaa cidii diagnosis-ka lagu sameeyay cidii la taskareynayay ayaan ka hadlaynaa epidemiology diagnosis wuxuu baaraa and treats or daaweeya communities or populations community markaas individual level maaha so waa maxay waa community level application markaan ka hadlayno waxaan u jeednaa in la hawlgeliyo la practice gareeyo si scientific loo practice gareeyo epidemiological studies istadiyada ama waxyaabaha baaritaanka lagu sameeyo epidemiology-ga khusay have direct and practical applications waxay leeyihiin hawlgelin toos ah oo practically direct ah hawlgelinta maxaa looga jeedaa for prevention of disease xanuunkii in laga hortago and promotion of health caafimaadkiina kor loogu qaado marka labadaas shay uu ku ururaa epidemiology waa prevention of disease and promotion of health epidemiology waa science and practice waa wax cilmi iyo study khusay ku tacalluqa sidoo kale practice oo hawlgelina leh halkan waxaan ku eegi doonaa aims of epidemiology ujeedooyinka uu leeyahay epidemiology-gu ayaan ku eegaynaa marka aimka horaan u sheegnay aim waxaynu doonayna inaynu gaadhno waa what we wanted to achieve waa objectiveska aynu doonayna inaynu ku guulaysano halka purpose-ku yahay sababta ama ujeedada waxaana aynu samaynayno epidemiology waxaanu qabanaa inaan ku baano occurrence of disease aimsku muxuu yahay aimka waxa ugu horeeya oo waxaan doonayno to describe waxaan epidemiology-ga u sameynaa waxa weeyaan to describe inaan sharaxno the magnitude award and distribution of the disease problem in human population iyo baaxadda
magnitude-ku waa awoodii laxaadka uu leeyahay. Distribution-ku waa filiqsanaanta sidee ugu filiqsanaya disease problem mushkiladan xanuun in human populations bulshada dhexdeeda sidee ugu filiqsan yahay awoodiisa iyo magnitude-kiisuna intee la-eg. qodobka labaad ee ujeedada epidemiology-ga waxyaabahan doonaya inaan gaarno waxaan to provide inaan helno data xog inaan helno essential muhiim u ah for planning inaynu planning iyo qorshe sameyno planning sidoo kale essential muhiim u ah implementation inaynu hawlgelino ugu dambeynna inaynu sameyno evaluation qiimeyn of health services adeegyada caafimaad aan bixinayno. Planning-ka waa qorshe marka la dejinayaa kadibna implementation baa la sameeyaa evaluation qiimeyn baa la sameeyaa. marka daatada ka soo baxday bulshadii iyo xanuunku siduu ku yahay ayaa keenaysa in lagu hawlgalo marka kadibna marka ugu dambeysana waxaa la sameeyaa setting priorities in la on-call la sameeyo priorities la sameeyo waxyaabaha awliyaadka ah ee marka hore ama services health services la bixinaya kala awliyeysan oo kala mudan marka inta mudan in la soo hormariyo. Aimiska epidemiology lessons waxaa ka mid ah identify risk factor in la ogaado risk factor-ka ama determinants of disease ama etiological agents wixii sababay microbe in la ogaado ma xanuunkan ma in la kala ogaado ma communicable disease mise waa non communicable disease ma xanuun infectious mise waa xanuun non infectious ma xanuun contagious ma xanuun mise non contagious xanuun bulshada ku faafaya mise mid aan ku faafin mid contacts la isku qaadsiinaya mise mid aan la isku qaadsiinaynin ma mid aan kuba faafinayo bulshada dhexdeeda non communicable ah asal loo ogaanaya ama in la ogaado etiological agents. waxaa ka mid ah aimiska to eliminate in laga saaro meesha ama reduce la sameeyo health problem or its consequence in mushkiladda caafimaad ee jirta meesha laga saaro ama la yareeyo iyadoo caqabadaheeda meesha laga saaro ayaa ujeedooyinka epidemiology uu dhisan yahay. ugu dambeyn ujeedooyinka aynu ka leenahay epidemiology waxa weeyaan to promote health inaan kor u qaadno health promotion sameyno and well-being iyo wanaagsanaanta iyo wacnaanta of society as a whole iyadoo dhan bulshadoo dhan inay wacnaato oo bad qabto caafimaadkooda noqdo mid taama iyo ujeedooyinka laga leeyahay epidemiology inay gaarsiiyo ay tahay. First, maxaan epidemiology loo sameynaynaa? Epidemiology waxaan u sameynaynaa kow inaanu disease-kii frequency-giisii ogaano quantify garano disease-kii inay distribution-kiisii baaxadda uu leeyahay ogaano inaan ogaano cidda xanuunka ku dhacday inaan ogaano halkuu ka dhacaya inaan ogaano goormuu dhacaya waa purposes-ka ama ujeedada epidemiology-ga. inaan sameyno hypothesis-kaas markaan doonayno inaan ku baarno waxyaabaha xanuunka sababa sidee lagaga hortagi karaa inaynu ogaano waxyaabaha xanuunka sababaya inaynu problemka iyo mushkiladda si fiican u aqoonsano inagoo aad u baarayna inaan plan iyo qorshe u sameyno health services-kiisaynu evaluation ugu sameyno. marka adigu waxaan kuni purposes way noqonayaan kooda waa maxay kooda waxay noqonaysaa what to measure frequency of disease in rakaadashadii ama frequency-ga xanuunka la cabiro soo noqoshadiisa quantify means waa quantity quantify disease xanuunka in tiradis inta qofku ku dhacay iyo inta noocu yahayba. kalena waa to assess distribution of disease in la assess gareeyo la qiimeeyo fiditaanka ama faafitaanka distributionku siduu ugu fiday bulshada dhexdeeda in la ogaado who or person who is getting disease xanuunka yahay in la ogaado where is disease oo kale ku ka dhacaya waa place-kii saddexdan soo sheegnay weeyaan when disease soo kale goormu dhacaya tanna waa maxay waa time-kii to form si loo sameeyo hypothesis in la sameeyo hypothesis-kaas oo ku saabsan causes-ka iyo preventive factors. Hypothesis-ka isla garanaya waa supposition ama wax idea ama fikrad la doonayo in la ogaado marka cause-ka waxay sababay ama si la doonayo in waxaba loo noqonayo ama waxa la odhanaya wax kala sababay iyo preventive factors-kii determinants of disease-kii in la ogaado oo causes-ku soo gelaya in la aqoonsado to identify la aqoonsado problems for further studies iyadoo aad loo sii baarayo in qorshe la sameeyo plan profile la helo and evaluate lana qiimeeyo health services adeegyada caafimaadka. halkan waxaan ku eegi doonaa in farqiga u dhexeeya epidemiology-ga iyo clinical medicine-ka. cashirka maanta waan yara farabadiyey in yar baa xidhan intaa waa iska dhamaystiraya casharada ma soo gaagaamin doona insha Allah. waxay ku kala duwan yihiin epidemiology-gu uu isbarbar dhigayaa waa iska simple
waxay ku kala duwan yihiin epidemiological units of study-ga la baranayo waa population baran soo sheegay la baranaya halka clinical medicine kuna yahay case ama individual qof baad dhakhtar u tagaya kana epidemiologist ka population ka u tagaya marka kan units of study la baranaya waa divided population waa bulshada isla garanaya kana waa individual ama waa case gaara ayaa la doonaya in la barto ama shakhsi baa la doonaya kan wuxuu leeyahay relevant data ayuu xiriir la sameynaya data hore u jirtay ama waxba lagu xiriirinaya sidoo kale identifies wuxuu aqoonsan source of infection halkii infection ku ka dhacay ayuu aqoonsanaya sidoo kale wuxuu kan lagu epidemiology ka hadlaya mode of spread nooca xanuunku u faafay ilaa bulshada laga hadlaya bulshadu waa dad kala duwan ka kooban tahay large population xanuunku is qaadsiinaya sidoo kale determinants kan wuxuu go'aamiyaa future trends waxyaabaha mustaqbalka la filan doono and control measures iyo waxyaabaha lagu xakameynayo halka clinical medicine case-kii uu khuseeyo case maxaa lagu sameynaya case baa la ogaanaya waa identification baa lagu sameynaya then diagnosis baa lagu sameynaya then prognosis baa la sameynaya prognosis maxaa la filayaa marka soo bixi doono then prescribed treatment waxaa loo qorayaa daaweynta baa loo qoraya ka daaweyntaas loo qoray marka waa case waa qofku la tacaalaya halka kalena uu ka hadlaya population dhan buu khuseeyaa oo ballaaran marka saas ku kala duwan sidoo kale concern with kan wuxuu khuseeyaa epidemiological kii xanuunsanayay iyo kii labadiiba uu ka shaqeynaya population hadduu mid xanuunsado inta kale bulshada la eegaya inta kale ayaa la eegaya marka concern wuxuu khuseeyaa those who are sick kuwa buka and those who are health iyo kuwa caafimaad qaba halku kan khuseeyo oo kaliya cid xanuunsanaysa clinical medicine wuxuu soo daaweeyaa ka hadlaa cid bukato often badanaa concern wuxuu khuseeyaa those who are sick kuwa buka epidemiology-ga cid wax baaraysa investigator-ka investigation ka sameynaysa ghost community waxay tagayaan bulshada halka clinical medicine-ka patients-kii bukaankii dhakhtarka u tagay dhakhtar baa tagaysa dhakhtarkii fadhiyo patient comes to doctor kan waa conceptual ideas iyo fikrado iyo thoughts iyo opinions iyo ku salaysan yahay results kan waxa lagu soo bandhigay in the form of table ama shaxana lagu soo bandhigay ama graphs waa graphs-kii chances-yo kan wuxuu qeexay biomedical concepts waxyaabo la xiriira caafimaadka nool thoughts kala xiriira refining technologies iyadoo technologies iyo waxyaabaha tech-ka casriyeynta la sii horumarinayo oo horumarinta lagu sameeyo diagnosis in la baaro xanuunkii and treatment diagnosis and treatment khuseeya individualist way halka uu yahay mid khuseeya population fara badan qaybta ugu dambeysa principles epidemiology afartan qodob buu khuseeya afar qodob isku kooban laakiin macna ballaaran khuseeya macnaha ballaaran ee khuseeyana ma ku saabsan yihiin mid kastaba waa broad principleskaas waa afar madaxweyne marka ugu horeysa epidemiologistku uu doonayo inuu hal qabto wuxuu sameeyaa exact observation-ka ama independent ama baaritaankii saxda ahayd ayuu sameeyaa markasta baaritaanka saxda ah sameyso qodobka labaadna sax buu kusii noqonaya oo correct interpretation waxaad sameynaysaa interpretation-kii ama turjubaadii ku habboonayd case-ka ama aad soo ogaatay ama population-ka xaaladaas health-kooda iyo caafimaadkooda relation-ka la ahayd ama related-ka la ahayd ama event-iga aad soo ogaatay interpretation-kii saxaad ku sameynaysaa waa goorma markaad exact observation sameyso deedna marka dambana regional ama logic explanations baad sameynaysaa explanationskii sharaxaadihii macquulka ahaa possible-ka ahaa ayaad maraysaa markuu interpretation-kaagu noqdo dee marka turjunto wixii haddana dadkaad soo bandhigaysa marka dadka soo bandhigto aad sharaxdo sawirka sawirka inooga muuqato wuxuu noqonaya wixii hadhow wixii logic ah macquula deedna marka dambe wuxuu noqonaya wax scientific construction ama scientific proof wax cilmi ku dhisan ayuu noqonaya waayo markii horeyse observation-kaagu sax buu ahaa interpretation-kaaguna mid sax buu ahaa correctia explanation-ka mid logic u ahaa oo caqligala deedna marka ugu dambeysa waxa kaasoo micno ku noqonaya scientific ah ama scientific study ah iyadoo la qaadan karo ayuu noqonayaa wada cilmi ku dhisan buu noqonayaa haddii casharka maanta way ku dheereeyey iga raali ahaanaysaan halkaasuu casharku noogu joogayaa casharada dambena insha allah waan soo gaabin doonaa xiisadda ka hogjeyntan suubin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu